wardegdega diyaarado warqado digniin ah ku daadiyay qaybo ka mid ah degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe xilli cabsi xoogan ay soo food saartay hogaamiyaasha ka tirsan kooxda oo halkaasi ku sugan. Wararkii ugu dambeeyay ee ku aadan arrimahaasi ayaan doonayaa inaan halkan idinkula wadaago, balse intaan u gudagalin xogahaasi oo dhameystiran waxaan ka codsanayaa daawade inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena YouTube-keena subscribe saarato si aad u hesho wararkii warbixinada aan halkaan ku baahino. Warar lagu kalsoonaan karo oo laga helayo degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in diyaarado dagaal ay saacadihii la soo dhaafay hawadaasi ku daadiyeen waraaqo digniin ah kuwaasoo si toos ah loogu wargelinayay shacabka ku nool magaalada Jilib inay ka fogaadaan goobaha ay ku sugan yihiin kooxda argagixisada Al-Shabaab, isla markaana ay baneeyaan xaafadaha halista ah si ay waxyeelo ugu soo gaarin howlgallada militari ee la filayo in halkaasi ay ka dhacaan. Warqadahaasi ayaa lagu arkay xaafado badan oo ka tirsan magaalada Jilib, waxaana ku qornaa fariimo si cad u muujinaya in weeraro culus iyo duqeymo qorsheysan ay dhawaan ka dhici doonaan degmada Jilib, gaar ahaan xarumo saldhigyo iyo sidoo kale goobo muhiim ah kooxda argagixisada Al-Shabaab ay ku leeyihiin gudaha iyo daafaha magaalada Jilib. Digniintan ayaa cabsi iyo walwal xoogan ku abuurtay shacabka reedka ah, kuwaas oo qaarkood bilaabay inay ka barakacaan xaafadahooda halka kuwa kalena ay si qarsoodi ah u raadinayaan goobo ay ku badbaadaan, maadaama Jilib ay muddo dheer ahayd xarun istiraatiiji ah oo ay maamulayeen kooxda argagixisada Al-Shabaab. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxay soo wariyeen in aan horey loo arag waraaqo sidaan u cad oo digniin ah, taas oo muujinaya in howlgallo ballaaran la qorsheeyay isla markaana ay ku soo wajahan yihiin gudaha degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Dhinaca kale, xogaha laga helayo gudaha degmada Jilib ayaa tilmaamaya in kooxda argagixisada Al-Shabaab ay wajahayaan cabsi xoogan ka gadaal markii ay heleen xogo ku saabsan duqeymo iyo weeraro dhulka ah oo lagu qaadayo gudaha degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Kooxda ayaa la soo warinayaa inay bilaabeen dhaqdhaqaaq ciidan, isla markaana halkaasi ay bilaabeen inay ku dhulmaaleystaan godadka hoostooda. Sidoo kale, ilo maxalli ah ayaa warinaya in hogaamiyaal muhiim u ah kooxda ay ka baxeen qaybo ka mid ah degmada Jilib, iyagoona u wareegay dhulka miyiga ama godad horey loo diyaariyay si ay ugu dhulmaaleystaan diyaaradaha dagaalka ee maanta dul hayaabayay gudaha degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Habeeno ka hor waxaa la xaqiijiyay in ciidamada maamul goboleedka Jubbaland oo kaashanaya cutubyo ka tirsan ciidanka kumaandooska Danab ay si qarsoodi ah u galeen gudaha magaalada Jilib, halkaas oo ay ka fuliyeen weeraro qorsheysan. Weerarkaasi ayaa la tilmaamay in lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen dagaalyahano iyo sidoo kale hogaamiyaal ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab, waxaana lagu dilay rag fara badan oo ka tirsanaa kooxda sida ay xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. Howlgalkan ayaa ahaa mid si xeeladeysan loo fuliyay, waxaana lagu tilmaamay mid fariin culus u diraya kooxda argagixisada Al-Shabaab, taas oo caddeynaysa in ciidamada dowladda ay heleen xog sirdoon oo xoogan. Duqeymo xoogan ayaa iyaguna xalay ka dhacay nawaaxiga degmada Jamaame, kuwaasoo lala beegsaday godod iyo xarumo ay ku dhulmaaleysanaysay xubno ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab. Duqeymahaasi ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwo si sax ah loo beegsaday, waxaana jugtooda laga maqlayay goobo ka fogfog degmada Jamaame, iyadoona dadka deegaanka ay sheegeen inay arkayeen dab iyo qaraxyo waaweyn. Ilo wareedyo ayaa tilmaamay in khasaare culus halkaasi uu ka soo gaaray maleeshiyaadkan, iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya ay weli si faahfaahsan u shaacin tirada rasmiga ah iyo jabka lagu gaarsiiyey duqeymahaasi kooxda Al-Shabaab. Inkastoo ay jiraan cabsi, haddana qaar ka mid ah shacabka ku nool gudaha Jubbaland ayaa muujinaya rajo iyo didiilo, iyagoona aaminsan in howlgalladan isxigxiga ay horseedi karaan in laga dulqaado kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan deegaanada ay muddada dheer gacanta ku hayaan. Dad badani ayaa tilmaamaya in digniintan loo diray shacabka ay muujinayso in ciidamada dowladda iyo saaxiibada ay tixgelinayaan badbaadada reedka, taasi oo ah arrin si weyn loo soo dhaweeyay. Xaaladda degmada Jilib iyo guud ahaan gobolka Jubbada Dhexe
ayaa ah mid aad u kacsan iyadoona la filayo in howlgallo culus oo isdaba joog ah lagu beegsado xarunta ugu weyn ee kooxda argagixisada al-shabaab ay ku leeyihiin koonfurta dalka. Digniintan loo diray shacabka, duqeymaha cirka iyo weerarada iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa ciidan ayaa dhammaantoodba muujinaya in marxalad cusub oo dagaal ay bilaabatay, taas oo laga yaabo in ay jab weyn gaarsiiso kooxda argagixisada al-shabaab.